مسؤولينta maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco ay wehriyaan mas'uuliyiinta ururka danyar kaab oo ka shaqeeya gargaarka iyo caawinta dadka jilicsan ayaa deeq raashin u qaybiyay dadka masaakiinta ee ku dhaqan magaalada Burco ee gobolka Togdheer waxaana maxadka caafimaadka iyo sidoo kale dadkaasi muxsiniinta ee ku soo deeqay deeqdaasi raashinka ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan dadka masaakiinta ee ku guda jira bisha barakeysan ee Ramadaan ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay maamulaha maxadka barashada caafimaadka ee magaalada Burco iyo sidoo kale mid kamid ah macallimiinta wax ka dhiga dugsigaasi barashada caafimaadka waxaana u mahadnaqeen cid kasto ka qayb qaadatay deeqdaasi raashinka waa fayskii labaad maalintii hore waanagi biyaha bixinay 10 booyadoodo biyaha fayskii labaad ee noo harsanaa oo aan markii hore ay dhowr qoys ay ku afuraan ilaa 35 qoys ayaanu halkan ku qaybinaynaa marka maadaama aan anagu dadka aad ugu warhaynin xaafadaha oo dhan aan gaadhin waxaan ku wareejinay ururkan danyar kaab oo isagu magaalada oo dhan u diiwaan gashan tahay si aanay laba jeer meel ugu dhicin ama aanay dad badan u qadin iyaga dad badan u diiwaan gashan yahay marka iyaga ayaanu ku wareejinay say u qaybiyaan caruurtii soo bixisay maxay ahayd ardayda ahayd saacadooda soo bixiyay macallimiintii iyo waalidiintoodii ku sabeertayna ilaahay qaar barakeysan oo gacmahooda u barakeeyay rabbi casaa wajalla inuu ka dhigo lacagta lagu soo iibiyay waa saacii caruurta dhigata maxadka caafimaadka Burco iyo nin muxsin oo isaguna la baxay 14 qoys ilaahay ajariyo xasanaad ka siiyo waalidkii soo bixiyeen saacaha iyo ardaygii u quuray inuu dadkiisa ku caawiyo intaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanadka xasanaadka ugu daro waa wax ku dayasho mudan Sheekh Ali Dhamac iyo sidoo kale Xasan Maxamuud Xayd iyo Caashe Qabiilo oo kamid ah ururka danyar kaab isla markaana muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa caawinta dadka jilicsan ayaa u mahadnaqay maxadka barashada caafimaadka iyo sidoo kale mid kamid ah dadka muxsiniinta ee ku soo deeqay qayb kamid ah raashinkaasi halkan maanta waxaan u taaganahay inaanu dadka walaalaheena baahan la qaybsano ama aanu u qaybino waxoogaa raashina oo afura ah loogu talagalay Ramadaanta afuradaas oo ay soo ururiyeen maxadka caafimaadka Burco ay soo ururiyeen ardayda iyo waalidiinta maamulka iyo macallimiintuba aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo nin muxsina oo isaguna 14 qoys ku soo biiriyay marka halkan waxaan ku qaybinaynaa 40 qoys baan ugu qaybinaynaa 30 qoys maxadka caafimaadka ayaa soo ururiyay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu meesha ka saaran wax ka khayr badan ugu bedelo dadka maanta hadibeenkii muxsiniinta ah ee ku soo hadibeenkeedii afuradan soo geystay walaalahooda hadibeenkeedii waxba aan haysan ee ka midka yahay maxadka caafimaadka Burco oo mar horena hadibeenkeedii fayskii labaad oo mar horena hadibeenkeedii biyihii iyana fayskii hore ahaa iyo nin muxsina isna oo hadibeenkeedii ku darsaday hadibeenkeedii yahay isna afuradaas marka ilaahay waxaan uga baryayaa inuu meesha ka saarin wax khayr qabo ugu bedelo ummadeennuna hadibeenkeedii ay saas kale isku naxariisato halkan waxa lagu bixinayaa 44 qof oo masaakiin oo danyar ah 30 waxa iska leh maxadka caafimaadka oo ay gureen ardaydu iyo macallimiintooda ilaahay wax khayr qaba ha siiyee 14 nin muxsina bixiyay annaguna waxaanu nahay danyar kaab ururka danyar kaab waayo waxaanu ognahay dadka aad iyo aad u tabaalaysan ee dhibaataysan Khaliil Barraawran warbaahinta qaranka Soomaaliland Burco